channel ka daawaneysaan waa lacag maal kusoo dhawaada maanta shirkana waxaa qaadan doonaa sidii loo xareystaa DV lottery-ga Mareykanka oo loo yaqaano green card. maanta halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa sida ugu fudud aad u xareysan karto DV lottery-ga. marka horeysa Chrome soo fur haddii aad haysato computer ama mobile. markuu meeshan ku keeno waxyaabo badan ayaa jiro oo meesha ku tusayo kale sida hadda photo example iyo DV 24 introduction iyo waxyaabo badan. markuu bugan ku saaro waa qaybta photo exampleska photoyaasha aad kala isaga rabo oo adigna lagaaga baahan yahay inaad ka taxadarto mar walba. hadda photodaas aad arkaysa hadda waa kuwo la doortay ama la accept gareeyay. waxyaabaha la diidaa waxay tahay sawirada hadda hoos kaaga muuqdo kale kuwaan madmadow baa ku jira lama ogola. midkan kale laakiin waa wada cadaan wax madow ku jira. midka saddexaad waad aragtaa kalar baa ku furan. midka afraad sidoo kale waa same waaye. midka ugu dambeeya midka shanaad ah waad aragtaa centerkiisa waa cadaan. aanu maano qaybta kale. meeshan hataa ka gudubno qaybta kale introduction ka gelina. introduction ka markii sidaan u galno waxyaabo faahfaahin sida loo iskaga register oo kugu tusi doona halkan wax walba faahfaahin halkaad baa ka dhex kartaa. sidoo kale PDF oo leeyahay waa soo degsan kartaa si aad u akhristo wax walba. kadib waxaa leedahay begin entry. code yar buu halkan ka soo saari doonaa. code-kan baa inta ku qoraysaa. code-ka markaad ku qorto kadib submit baa leesaa. submit markaad dhahdo meesha ugu horeysa last name baa lagu dhahay family name waa lagu dhahay. waxaa laga baahan yahay magacaaga ugu dambeeya inaad ku qorto. hadda Khalid baa ku qoray. Khalidka looma baahna waa magaca koowaad. qaar baa ku qaldayo waa magac ugu dambeeya baa la rabaa. waa fahantaa umaleynaa. Abdullahi waxaan ku qorayo dhan waa example just to know waan weli ma xareysan laakiin saacadaha soo socda insha Allah in xareystaa arkiina. DV lottery-ga maanta ayuu furmay oo ah taariikhda 5 October. xagga Soomaaliya waxay ka furantay maqribadii camal 12 saac meelahaas oo kale. meesha labaad oo kale waxay gelinaysaa dadba taariikhdooda waxay gelinayaan oo kale 21 ama 31 waqtiga dhashteen oo kale lama rabo. waa inaad akhrisaa bisha waxaa lagu dhahay bishii waaye laakiin day waad meesha u qoran tahay. meeshana lagaaga baahan yahay inaad ku qorto maalinta aad dhalatay. sidoo kale xaggan waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku qorto dhalashadaada adigoo sheeganayo da'weyn adan sheegan da'yar. qaybtan kale aad arkaysaan waxaa lagu dhahay enter geli birth city yacni caasimadda aad ku dhalatay. ma ahan banaadir oo kale ama waxyaabo la mid ah. xaafadda ku dhalatay waa caasimadda ku dhalatay waa Muqdisho. haddii aadan garanaynin no problem. birthday waxaa leeyahay birthday city unknown baa dhihi kartaa. meesha labaad waxaa ku qoran waxaad gelinaysaa Soomaaliya yacni xagee baad ka timid ama xagee baad ku nooshahay baa lagu dhihi doonaa. marka labaad waxaa lagu dhahay xagee baad ku dhalatay Soomaaliya baad oranaysaa. haddana marka su-aasha lixaad ba waxay tahay wadankaaga maxaa la dhahaa sheeg DV lottery-ga ma ogol yihiin
dadka Soomaali jooga inay maaragtaa soo dalbadaan. Yes, way ogol yihiin. Mideeda labaad waxay tahay faahfaahinta kale xaggaa ka qarsi kartaa. Meesha toddobaad waxay tahay inaad geliso sawirkaas oo aad soo cabirtay. Waxaan kugu tusi doonaa fiidiyowga markuu dhammaado kadib, ama fiidiyowga hadda soo dhexgeli doona insha Allah. Waa tahay marka qaybtan waxaa kugu sharaxi doonaa qaabka sawirkaaga aad maaragtaa si sax ah aad ugu program lahayd ama aad u sahli lahayd sawirka aad lottery aad gelinaysid. Maanta fiidiyowgan waa fiidiyowgii kugu dambeeyay aad daawan lahayd. Wax walba ka caawinaya sawirkaaga sida u habeyn lahayd, sawirkaas u geli lahayd oo kale, iyo faahfaahin dhammaystiran intaba. Marka ugu horeysa sawirkaaga aad waxaa tusaale ahaan sawir waxaa soo dejiyay Xasan Sheekh. Markaa soo dejiyay marka wax yar baan rabaa inaan ku tuso. Sawirkaaga baa inta upload gelinaysaa wax yar. Marka sawirka waa soo upload geliyay, waxaan rabaa hadda sawirka inuu ii soo jiro si automatic ah. Sawirka waa kana waan soo qaadanaynaa markaa. Marka sawirka waan soo degsanay, dhaxdan ugu baxaynaa. Waxaan imaanaynaa PixArt. Markaa meeshaan aad joogto waxaad ku dhufanaysaa qaybta ku qoran blank, ama hadduu ku soo tegi waayo waxaa jiro meel aad arkayso oo kaga soo saari doono black and white. Waxaad dooranaysaa qaybta background baa soo saaranaysaa sawir cadaan ah. Sawirka rabto waad ka dhigi kartaa. Aniga hadda sawir baan rabaa inaan kor ugu sameeyo. Wax muhiim maaha, qaybtaas aad ku qoran tahay background baad taabanaysaa. Background-ka markii aad sidaas u taabato waxyaabo badan uu ku saari doonaa. Waxaad kasii taabanaysaa qaybta ku calaamadii doono cadaankaas baa muhiim ah in background uu ku noqdo. Mar le dooranaynaa, sorry, 3 marka badan baa dooranay. Halka mar waa kana. Halka mar markii asaan soo dhahdo waa timaaday. Kadib sawirka waxaa soo qaadanaysaa haddii aadaya aan jarnay waxaa Sheekh ahaa saan weeye. Marka sawirka waad qurxinaysaa wax yar. Waxaa la rabaa sawirka wax yar inuu dheeraado. Marka hadda meeshii aan rabnay joognaa. Marka muhiimada kaliya loo baahan yahay waxay tahay in gaashaadu waxba ka muuqanin, madmadow iyo cadaan midna aysan lahayn. Sawirkaaga si fasax ah waa in loo arkaa. Marka sawirkan waxyaabo waxaa ku jira yar ah, halahan baa ka jaraynaa. Waxay la tahay in dareemeynin, adiga inaad ka jarto muhiim maaha. Waa tusaale waxaan aad arkaysaan. Example baan kaa siinayaa. Sawirka hadda buu hagaagsan yahay. Sawirka weli half baa kasii dhigaynaa, laakiin hadda maaha. Save baan dhahnay. Hadda sawirka waa sidaan u baahnayn. Crop baan soo dhahnaynaa. Hadda sawirka waa yar yahay, madaxiisa in la arkaa loo baahan yahay. Marka
Okay, waa sidii la rabay. Okay, marka save baan dhahaneynaa. Aan imaano Pixel Lab-ka. Pixel Lab-ka intaad imaan kahor waxaad kasoo galaysaa qaybta Chrome-ka. Chrome-ka waxaad kasoo galaysaa qaybta gallery-gaaga. Meeshaan baad imaanaysaa, sawirkaan u baahnayn waa kan. Qaybta waxaad taabanaysaa share-ta. Kadib waxaad share ku dhahaysaa Pixel Lab-ka. Pixel Lab markuu sidan kuu keeno, qaybtan kore baad taabanaysaa. Waa calaamaday doonaa. Qaybtaas kore baad taabanaysaa. Kadib waxaad kasii dooranaysaa qaybta images. Markaad meeshaan imaado, meeshaan waa ka tiraysaa 600 oo kaliya ka dhigaysaa. Sidoo kale meeshaan waa ka tiraysaa 600 oo kaliya ka dhigaysaa. Okay. Markaa meeshaan imaado waad okay baad leedahay. Okay, markaad dhahdo waa sidii loo baahnaa hadda. Okay, waxaad taabanaysaa qaybta save-ka. Save as image. Markaa meeshaan aad marayso waa inaad iska ilaalisaa meeshaan. Kaliya meeshaan haddii aad saxdo, meeshaan baa lagu soo celinayaa haddana. Kasta meeshay ka tahay waxaad ka dhigaysaa very high ama high quality. Very high baa ka dhigaa aniga hadda. Very high markaa ka dhigto si toos waxaad ku galaysaa haddana website-ka. Okay, markaa waxaan imaanay meeshii aan u baahnayn. Meeshii aan u baahnayn waa meeshaan. Sawirada sax kuu saaran yihiin waa kuwa loo baahnaa. Qaar diidmaha way jiraan oo kaliya waxaas iyo waxyaabahaas oo kale lama ogola. Koofina sidoo kale lama ogola. Okay, marka qaybta waxaad taabanaynaa choose photo. Yani sawirkaas ka jeekamisa in lagu ogol yahay. Sawirka waa soo qaadan waa kan. Waad aragtay sawirkii hadda aan sameynay waana la ogolaaday. Accepted, proceeded baa dhahaynaa. Okay. Kadib download an image waa soo degsanaynaa. Okay, markale haddaa isku dayno sawirka hadaatay aan soo dejinay baa ku fiirinaynaa insha Allah. Marka waad aragtay sawirkii aan soo dejinay isla Google-ka wuu naga diiday. Sidaan u habeeyay isku day adigana inaad u habeyso. Waxaan fili doonaa insha Allah inay ku soo bixi doonto aad ku guuleysan doontid insha Allah. meelaha hoos oo kale email baad gelinaysaa. Sidoo kale iskuulka baa lagu weydiin doonaa. Sidoo kale waxaa lagu weydiin doonaa ma soo guursatay. Kadib waxaa lagu dhihi doonaa haddana meeqa carruur aad leedahay, waxyaabo saas ah. Kadib continue baad leedahay. Sidaas baa koodka iyo wax dhan ugu sii doonaa insha Allah. Sideedaad umaano la address lemon baad u maanaysaa. Waxaad gashanaysaa waxa rabto. Ana hadda Bakaar baa gastay. Address 2 waa kasoo tagaysaa. Sidoo kale meesha labaad city geliya lagu dhahay caasimada Muqdisho baad gelinaysaa. meesha saddexaad waxaa lagu dhahay gobolka geli Banaadir baad gelinaysaa. sidoo kale postal code-ka anaga postal Soomaali hataan nahay postal code ma leeyin sababtoo wadankeena wali yani si fiican looma aqoonsanin. waxaa leedahay no postal code waa ka tirtiraysaa. Hadaartu waa gashi kartaa no problem, laakiin wadamada qaar way aqbaan. laakiin waxaa dhehaysaa no postal code. kadib waxaad dooranaysaa Soomaaliya. Okay, markaa Soomaaliya doorato waxaa lagu dhahaa wadankee baad ku nooshahay waqti xaadirkan hadda aad ku sugan tahay xagee baad ku nooshahay. kadib waxaad dooranaysaa Soomaaliya. Soomaaliya markaad gashato kadib su-aasha 10aad wuxuu ku soo saari doonaa numberkaaga geliyo ku dhihi doonaa. numberkaaga ka bilaabaysaa adigoo ka bilaabaya plus 202 6 ama wax kale ku xijin karto. qaybta 11aad aan u maano. qaybta 11aad waxaa laga baahan yahay email-kaaga.
emailkaaga si sax ah waa inaad gelisaa si hadhow lagala soo xiriiro si qof kale uusan u qaadan. Been abuur baa jira la sameynayo. Emailkaaga waa inaad 24 saac haysataa. Waxaa laga baahan yahay email passwordkiisa aad xafidan tahay waa inaad gelisaa. Qaybta labaad waxaad gelinaysaa emailka. Kan hadda copy oo iga diiday inaan cadow qoro waaye. Okay, markaa saas u geliso waxaa lagu dhahay what is highest level of education you have achieved as of today. Aqoonta heerkee baad ka maraysaa maanta. Adiga waxaad dhigi kartaa primary only, primary school only, high school no degree, high school degree, waxyaabo badan baa ugu jira meesha. First mid ugu fudud baa waxay tahay inaad dooran karto university degree and high school degree. Okay, 13aad aan u maano. Qayb 13aad waxaad gelinaysaa unmarried haddii aadan guursanin. Si walbo waxaa kaaga wanaagsan unmarried aad ku qorato. Kadib adigoo married ku qortay haddii aad dhahdo unmarried ama single baan ahay, single hadda meesha kuma jiro laakiin unmarried waaye. Unmarried adigoo waxaa wanaagsan imse carruur baa dhashay baa lagu leeyahay. 0 baad gelinaysaa ama waad ka gudbaysaa adigoo 0 aad gelinin. Haddaba aragti submit baa dhahay waa laga soo diiday. Sidaas baad u upload gareysan kartaa.